waxaa deegaanka cagaaran lagu qabtay xaflad qalinjabina oo loogu dabaaldegayay dafcaddii shanaad ee ka baxda macadka al-imaamu shaafici oo ah macad si gaar ah diiradda u saara barashada culumta shareecada iyo luuqadda carabiga. munaasabadan oo ka dhacday xarunta macadka ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta macadka, qaar ka mid ah asaasayaasha macadka, culimaadudiin ka kala yimid deegaano kala duwan, maamulka deegaanka cagaaran, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cagaaran. macadka al-imaamu shaafici ee deegaanka cagaaran ayaa noqday tiir muhiima oo ay bulshada deegaanku si weyn ugu tiirsan tahay, maadaama deegaanka cagaaran uu muddo dheer baahi weyn u qabay xarun waxbarasho oo tayo leh, gaar ahaanna mid diimeed. macadku waxa uu si dhab ah uga jawaabay baahidaasi, isagoona si joogta ah u bixiya aqoon diimeed iyo akhlaaq wanaagsan. intii ay xafladdu socotay ayaa waxaa laga jeediyey khudbado wacdi iyo waano isugu jira oo lagu bogaadinayay dadaalka ardayda iyo kaalinta uu macadku uu ka qaadanayo barbaarinta jiilalka aqoon iyo diin xambaarsan. macadka al-imaamu shaafici ee deegaanka cagaaran waxa uu hadda u muuqdaa mid horseedaya isbeddel aqooneed oo muuqda, wuxuuna rajo cusub u yahay jiilalka soo koraya ee deegaanka cagaaran. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أولا علمك عبرتين ومهم وأشرف العلوم وحل برته شيء أوفي عن ويان ودينت الله سبحانه وتعالى. أولا مركز نفتي نيتيضا وحاول دار مياه علم أن نكون نقنه وحاول أن يعني واحد رقم قلنا إنه سنقول ثقافة يرهم مقالمة عن برني إنه نقض علمي عن كعمل فلنا عمل كاس مركز واحد كسي دلنا إياه هذا هو برتي دعوة هننا وجدتي علمي حدي الله برته ومد إن لو قد بيه ودعوة الله يعني لو قف إيديسته ومهمتها وحاويان الله صدري إله سبحانه وتعالى أنبياديس marka inaanu niyad qalbiga ku hayno cilmiga inaan ku dhaqanno thaniyan inaanu ummadda u gudbino oo aan fahansiino kelmadda saddexaad waxa weeyaan waxaan ku jirnaa waqti aad u qalafsan oo fitantii ay badatay macaasidii waxa xalay xumaada ay wanaag u ekaadeen wanaag ka bateen runtii adagna ku jirnaa waxaan idin dardaarmaya aniga nafteedaba idinka nafteedaba inaynu baraha bulshada maantay oo ummadii fasaadiyay oo diin la'aan dhigay oo akhlaaq la'aan dhigay oo jiritaan la'aan dhigay baraha bulshada inaan meel iska saarno waqtigan inaan ku dhumin waana la ka xisaabinaya adduunku waa maalmaha koobana aan joogno waxa fiican inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali gelino si adduunkana sharaf aan ugu noolaano aakhirana jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala helno marka baraha bulshada marka waxa way ifsaadka ugu badan oo daayirta maanta haysta waa ayada weeye waqtigiina aysan ka dhumin ogaada waqtigaas maalin baan la weydiinaya waxaan ku bixinay waqtigaas quruxda badan ee dhalinyarnimada leh ee hayaanka dheer leh. macadka imaamu shaafici ee deegaanka cagaaran oo ku yaala hadda markaskan weyn aan joogno aal yaxyaa macadku waa qaniyun can tacriifihi tacriifkiisa waa qani weeye aad baa loo yaqaanaa daafaha caalamka aad buu wada gaaray wax yar marka haddaan ku laabto ardayda maanta qalin jabinaysa dafcaddii shanaad ee macadka ka qalin jabisoo ka baxda weeye afar dafcadood oo horaa ka horreeyay oo ka qalin jabiyey qaybtii ugu horreysay hadda ay khatimayaan dhammaynayaan sanadkan ayaguna jaamacaddii ay saano kale uga qalin jabinayaan xafladeeda ay ku jiraan kana shaqeeya goobo fara badan oo kala duwan oo ka mida deegaanka cagaaran degmada gaalkacyo puntland guud ahaan meelo ka baxsan puntland sida hadda dowlad deegaankan aan degno soomaaliya oo kale kenya qaybtood waa jidhaa meelo kala duwan bay gaareen ardaydii ka baxday hadda macadkan ka qalin jabiyey oo hadda ay ka shaqeeyaan waxna waa ka bartaan waxbarashadoodii waa sii wataan. intaas kadib si guud macadka ardada dhigata guud ahaan waa 290 arday markii lagu daro ardayda hadda maanta qalin jabinaysa. si toosa waxaa macadka u dhigtaa macadku sidiisa waxa uu shaqeeyaa waa gelin dambe 1:00 laga bilaabo ilaa 5:00 galabnimo
250 arday baa si toosa xilligaas u timaada gelinka dambe oo macadka ka faa'iideysata oo iskugu jidha macadka qaybihiisa kala duwan. macadku waxa uu ka kooban yahay 3 marxaladood: marxalatul ibtidaa'iyya, marxalatul i'daadiyya ama mutawassita, iyo marxalatul thanawiyya ayuu ka kooban yahay. waa 8 fasal ayay isugu jiraan 250 ka arday. ardada macadka dhigata intaa kaliya maahan, 300 arday ayay gaarayaan. waxaa jira arday gaaraysa 40 ama 50 oo iyaguna macadka ka faa'iideysta qaybta hameenkii bacdal maghrib ilaa 3 saac oo hameennimo. maadaama dad waalidiin ay yihiin, laga yaabo inay la harjadayaan maalinka ay ku mashquulsan yihiin biilkii iyo ilmaha in maaragtay wax loo ceyriyo ilmahooda maalinka wax baranayo. ayagana fursad baan u samaynay oo ah in hameenka ay ka faa'iideystaan waxbarashadaas. sanadba sanadka ka dambeeya macadku waxa uu samaynayaa horumar ballaaran oo kor u kaca ardaydu inay siyaadayso. markii loo fiiriyo xilligii la aasaasay oo 2017 ah iyo hadda meesha uu marahayo macaahid aasaasan ama maaragtay muddo ka dheer intaas. maadaama shareecada barataan, horta shareecadu in idinka muuqataa la rabaa, gabdha iyo wiilalba. shareecada aad baranaysaan inay waxa xumaantaana idinka fogayso, waxa wanaagsanna idinku dhawaysa baa la rabaa, waxa wanaagsanna idinka muuqato, gabar iyo wiilba. dhallinyaradu waxaa laga yaabaa in inta iyagoo shareecadii baranaya in haddana ku dhaqankii aad ugu liitaan oo isa sidii sharcigu amray aysan ugu dhaqmin. waxaa la rabaa gabdhuhu inay si wacan u xijaabtaan, is-asturaan, cilmiga ay ka faa'iidaysteen ay dadkana uga faa'iideeyaan, waalidoodkooda uga faa'iideeyaan. wiilal iyo gabdhaba saasaa laga rabaa. wiilasha sidoo kalea laga rabaa dad sharcigii iyo cilmigii ay barteen oo shareecada ah inuu ka muuqdo. ardada sidaasaan kula dardaarmayaa. waxaan filayaa inay bey'ada kale aysan waxba kaga duwanayn, ama labiska ama dharka ay qaadanayaan ama siday u labisanayaan inaysan dadka kale kaga duwanayn baa laga yaaba. laakiin shareecada hadday bartaan waxaa la rabaa inay wixii ka muuqdaan oo sharcigu wuxuu amray ay ka muuqato, gabar iyo wiilba. intaasaan ardada dhihi lahaa. waalid baan ahayo waan idin wixii muuqda inaan tuso aad bay u fiican tahay. marka gabdhaha iyo wiilashaba waxaan kula dardaarmayaa inay waxaad barateen idinka muuqdaan, kuna camalfashaan sharciga. intaas waa ardada. waalidiinta waxaan dhihi lahaa inaad garab istaagtaan ardadii oo aydan faraha ka qaadin, oo cilmigii shareecada ay sii wataan ama xalaqaadka ka sii wataan ama isheeg jaamacadaha iyo waxay meeshii ka faa'iidaysan karaan. reecagaaran wax badanoo wanaagsan baad haysataan oo aan waddanka lagu haysan. marka waxaa wanaagsan oo ilaahay gurigiinna idinku keenay inaad maaragtay ka wada faa'iidaystaan, rag iyo dumarba. aad baa loogu baahan yahay. ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala. xafladan wanaagsan noo gartay aan ka soo qayb galno oo ardadanadii oo qalin jabinaysaan aan la qaybsanno. maanta waxay noo tahay maalin faraxa. waxaan xasuusin lahaa qowlkii uu yidhi nebi sulaymaan calayhi salaam: haadaa min fadli rabbii liyabluwanii ashkuru am akfur. marka ilaahay nimco ku siiyo waxaa weeye markuu ilaahay carshigii balqiis loo keenay nebi sulaymaan ma kibrin ma boodboodin, laakiin wuxuu yidhi: haadaa min fadli rabbii liyabluwanii ashkuru am akfur. waman shakara fa inamaa yashkuru linafsih waman kafara fa ina rabbii haniyun kariim. marka ilaahay aan ku shukrino nimcadaasna siiyey. nicmadaas shukrigeed waxaa ka mida marka qofka ilaahay shareecadiisii uu baray uu doortay inuu diintaas qiimaheeda dareemo, inuu ku dhaqmo, inuu ka shaqeeyo suu u sii fidin lahaa cilmiga ilaahay ku baray. sadaqada inaad ka bixisaa lagaa rabaa. walaalahaaga u baahan inaad gaarsiisid, adigii aad aqoontaada kor usi dhistid. marka meeshaa kasii wada intaasaan dhihi lahaa insha allahu tacaala. kuwii ku camalfala oo cilmiga uu ka muuqdaan allah naga dhigo. biquluubin mafcamatin بالفرح والامتنان نقف اليوم على منبر التخرج من معهد الإمام الشافعي. هذا الصرح العلمي المبارك الذي احتضننا سنين من أعمارنا وربانا على العلم والخلق وعلى الفقه والدين
على الوسطية والاعتدال. وقد قيل في فضل العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فعش بالعلم متقيا لربك دائما، فالعلم نور للقلب والبصر. لقد كانت رحلتنا في هذا المعهد رحلة علم وتزكية، تعلمنا فيها كيف يكون طلب العلم عبادة، وكيف يكون الفقه نورا، وكيف يكون الأدب رفيق العالم قبل علمه. عشنا سنوات من الجد والاجتهاد، فالحمد لله الذي أتمها علينا بالتمام والفضل. waxay mahad maanteed u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay in aynu noo qabsoonto xafladan aadka u qiimo quruxda badan, sidoo kalena aan soo gaarnay heerkan aadka u quruxda badan. waxaan kale u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha oo ay ugu horeeyaan maamulkeena sharafta leh, macallimiinteena qiimaha iyo qaayaha badan, iyo waalidiinteena qaaliga ah oo la'aantood aan soo gaarneen meesha aan maanta joogno, nalana garab taagnaa hil iyo hooba. waxaan kale u mahad celinayaa culimada, bahda jaamacadaha, odayaasha dhaqanka, bahda saxaafadaha iyo dhammaan marti sharafta kale. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Dr. Cabdicasiis iyo Dr. Xamdi oo ah aasaasiyaasha macadka quruxda badan oo aan maanta ka qalin bedelanayno annagoo ah dafcadii shanaad ee macadka Imaam Shaafici. codsi waxaan ka codsanaynaa bahda jaamacadaha inay nagu garab siiyaan sii wadida iyo kamira dhalinta hay'aankeena waxbarasho oo ayna siiyaan deeq waxbarasho scholarship. waxaan sidoo kale waalidiinteena ka codsanaynaa inay noo laban laabaan dadaalkoodii iyo ducadoodii si aan u xaqiijino yoolkeennii waxbarasho. waxaan kula dardaarmayaa ardada saaxiibadayda ah oo aan maanta wada qalin bedelanayno inay sii wataan geedigoodii waxbarasho si ay u rumeeyaan hadafkoodii adduun iyo koodii aakhiraba. islaamku marka wax afka laga sheegta ma aha, wax lagu labista ma aha, wax inaan islaam nahay magaca bas ah ma aha, laakiin waa dhaqan, waa akhlaaq, waa aadaab, waa dariiq la raaco. waxaan dardaarmayaa dhammaanteen ardada kaliya ma aha inaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ay wada inoo noqoto. dhammaan haddaynu nahay culimo, haddaynu nahay arday, haddaan dad waaweyn nahay, haddii dowlad la yahay, makhluuqa ilaahay abuuray dhammaan si u dhan yahay wuxuu raadinayaa nolol. qof walba meeshuu doona ha u maro, dhammaanteen nolol baan raadinaynaa. noloshiina maaha si bilcakisa in loo raadiyo. waxaad moodaa hadda markii la fiiriyo waddamada aynu ku noolahay in risqu ka sheeya Ameerika iyo Yurub iyo badaha iyo meesha gaaladu joogto risqi inuu jiro baad moodaa ummaddu waa u doolaysaa, waa jiraysaa. laakiin sida ma risqu alla gacantiisa ku jira, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa haya, culimadii baa joogta. ilaahayna asaga inoo sheegay inuu inooga dhow yahay xawl mariidkeena ama hungurigeena. ilaahaasaa risqu gacantiisa ku jira, isagaa la baryaa. rabbi subxaanahu wa ta'aala risqa haya. qofka bini aadamka qalbigiisu waa hadalkayga ugu dambeeyo aan soo gabagabaynayee inuu u turjumo risqa ilaahay inuu hayo baa horta loo baahan yahay. xafladani aragtidayda iyo garashada aan xambaarsanahay laba aragtiyood bay leedahay. wixii kale oo lagu daraa waa danlumin iyo waqti lumin. waa maxay maxadkan ciddii asaastay, maalgelisay, nooloo aan dhiman, ilaahay wax loo weydiiyo waa qodob. kuwii noo asaasay oo noo sameeyey gogashan oo masaajidada noo sameeyey oo noo sameeyey tacliintan oo maalkoodii iyo juhdigoodii iyo maskaxdoodii geliyey, ilaahay waxaanu ka baryaynaa qiyaamaha meeshan meel ka qurux badan la adigeeyo. qiyaamaha meeshan meel ka qurux badan la adigeeyo. ifkana allah idinku ilaasho, ifkana allah idinku ilaasho. ciise ka dherga, ciise ka dherga, maaminad ka dherga, maal ka dherga, diin ka dherga. qodobka labaad, kuwa horoo ka baxay, kuwa hadda ka baxay, kuwa ka bixi doona in la yidhaahdo waxaad barateen allah idinku anfaco. ninkii hadalsiyaadaha kale ku daraa waa waqti kordhin weeye. waxaan u mahad celinayaa digtoorada noo aasaasay macadkan qiimaha badan ee goobtan khayriga
juhdiga badan iyo wakhtiga badan ku bixiyey soo saaray jiilashan quruxda badan oo ay ka mid yihiin ardadan maanta ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankii xasanaadka ha idinku daro acmaashiinnana Allah ha aqbalo cilmiga laga faa'iidaystay oo deegaanku ka faa'iidaystay oo aad juhdiga badan geliseenna kuwii alla ku anfaco ilaahay ha naga dhigo anigoo ku hadlahaya bahda waalidiinta afkooda waxaan leeyahay jazaakumullahu khayral jazaa codsiga ardada oo ahaa jaamacadaha waxaan ka codsanaynaa scholarship ayaan ka codsanaynaa ay yidhaahdeen waa naga diyaar jaamacadda daarulculuum xarunteeda ugu weyn ay muqdisho tahay xarunteeda labaadna ay hargeyso tahay xarunteeda saddexaadna ay beledweyne tahay xarunteeda afraadna ay gaalkacyo tahay waa diyaar hawsha waa u diyaar weliba ma dhahayo sida jaamacadaha qaar ay yidhaahdaan ardayga kaalinta koowaad galo ayaan scholarship siinayna ma dhahayo aniga waxaan dhahayaa ardayga ay noo soo gudbiyaan maamulka meesha ama duruuf ahaan ha u eegaana ama dadaal ahaan ha u eegaana ama kaalin ha u eegaana ardayga noola soo gudbiyo ayaan u ballanqaadnay scholarshipkaas jaamacadda sharaxadeeda kama gaari karo waa la istaba taagan yahay dhegtaa wada taagan oo markii jaamacada loo yeero ardada codsi bay dhiibteeno codsigaasa jawaab laga sugayaa jaamacadda bariga afrika waa jaamacadaha dabcan dee gobolka oo dhan ama puntland oo dhan jaamacadaha ugu weyn bay ka mid tahay ama jaamacadda ugu weyn weeye taqriiban waxa la yidhaahdo waxbarashadeedana iyo tayadeeda iyo nidaamkeedana waa la isla wada ogsoon yahay waa la wada garanayaa waxaan hadda ka warbixinaya ma ahan jaamacadduna calaaqaad u dhowey macadka la leedahay horeyna minxawa u bixin jirnay haddana sida aan minxada u bixin jirnay baan u bixinaynaa ardadana si wanaagsan baan usoo dhawaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaan filayaa ragga hadda macallimiinta ka macadka xataa qaar ka mid ah inay jaamacadda dhiganayaan arday ka mid yihiin marka xogta jaamacadda iyo wax kastoy tahay si fiican baad u haysaan waa idin soo dhawaynaynaa keliya waxa aan ka codsanaynaa ardada waxa weeye waxbarashada dadaalkeeda in la sii wado meel walba wax laga baranayaba muhiimaddu waa aqoonta muhiimaddu waa waxbarashada muhiimaddu waa geedi socodka aqooneed oo bilowdeen inuusan meesha ku gurin oo ku go'in ee heer sare ardaygu uu gaaro waxbarashadiisuna ay tayo yeelato taas ayaa asaaska iyo salka taasaan marka idinku dhiirigelinayaa ka jaamacadda bariga afrika aan ahaana si wanaagsan baa cid kastoo idinkaga timaada aan usoo dhawaynaynaa minaxii aan bixin jirnayna sidii bay diyaar u yihiin jaamaca islaamiya oo ka mid a jaamacadaha gobolka ku yaala ayana waxay soo dhaweynaysaa insha allahu tacaala codsiga ardada ay soo jeediyeen ciddii uu inoo soo gudbiyey maamulka subxaanahu watacaala waanu soo dhawaynaynaa insha allahu tacaala aad baa umahadsantiisa hayaanka waxbarasho aad ku jidhaan samir buu u baahan yahay maanta leefalka aad maraysaan waa meelihii ugu fiicnaa meelaha la soo gaaro laakiin in yaroo la adkaysto unbaa idiin hadhay oo nin walba uu meesha sii laasimo siina adkaysto waxayna u baahan tahay wattaqullaah wa yucallimukum allah ilaahay ka baqa asagaa idin barayay cilmi wuxuu u baahan yahay kow alla ka cabsi iyo gudbin midda labaad waa idiin dardaarmayaa waxay tahay deegaanka aad wax ku barateen waa deegaan baahi badan waxbarasho u qaba waa deegaan haysta goobo u diyaarsan in wax lagu barto oo meelaha dhiggiinnahu aysan haysan ciddii dadka wax ku bari lahayd waa idinka marka labaad mid noqonaysaan ama dhalinyaro sida dhalinyaro badan oo ay TikTok-ka adoon ugu tahay iyo Facebook adoon u ah Facebook iyo mobile wiilku leegu sameeyay ama waxaad noqonaysaan maskaxdii cagaaran ay martida u noqon lahayd iyo aqoonta ay martida u noqon lahayd iyo waxa ka soo ay dareemaysa dadka ka saari lahaa saa u noqon lahayd inaad ku fakartaan marka jazaakumullahu khayran waxa idin rajaynayaa inaad adkaysan doontaan cagaaran iyo gobolka aad ku nooshihiin saad wax uga bedeli lahaydeen aad qorshihiina ku darsan lahayd waxayna ka bilaabanaysaa naftiina saad u hogaamisaan waxaan rabaa arday waxaad maanta aad barateen wixii la baran lahaa wixii ugu fiicnaa waxaad maanta dadkaas sharafta badan oo juhdigeena geliya oo macallimiintiina leh oo dadka aasaasay macadkan leh oo intaa juhdi soo geliyay waxaad uga abaalgudi doontaan inaad naftiina tadbiiqisaan waxaad barateen oo shariicada islaamka inaad naftiina ku tadbiiqisaan waxbarashadiina aad hore u sii wadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hambalyaan leenahay allah idinku abaalgudo
taas intaasaan leeyahay kusoo dheeraan mayo waalidiin waxaan rabnaa anoo afkooda ku hadlaya waxaan u ducaynaynaa dhammaan cid allaale ciddii ka qayb qaadatay macadkan sharafta iyo qiimaha badan oo ugu horeeyo Dr. Cabdicasiis iyo Dr. Xamdi ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalkooda iyo maskaxdooda Allah u barakeeyo maalkooda iyo maskaxdooda Allah u barakeeyo waa noo abaalgudeen dad badan baa maanta nimcada haysan ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka Allah u saaro waalidka waxaan leenahay waalidiinay maanta waxaanu haysanaa nimco ilaahay subxaanahu wa ta'ala na siiyay oo dadka jaarkeena ay usan haysan oo ah shariicadii macadidka oo dad badan ka qayb galeen inaynu ku shukrino macadkeenana aynu garab taagno ubadkeena aynu ku tadbiiqino caruurteena maanta ka qalajimay ku biri ka qalajimay aan muxuu ahaatay hore u sii wadno khaas ahaan waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan u baryaynaa dhaqaatiirta meeshaan ka soo shaqaysay Dr. Cabdicasiis iyo Dr. Khadiijo oo macadkan aadka u ballaaran noo dhisay ka kooban 60 lagu dhuftay 60 fasalka fasuul 10 fasal leh qaybtii maamulka oo la qaybtii cafeterianka qaybtii cibaadada iyo suuliyaal shan oo gabdhaha iyo suuliyaal shan oo ah ay leeyihiin wiilashu iyo qaybta maamulka ayana sidaas leh beero iyo meelo maarta lagu nastaba leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel qurux badan baan noo dhisteen ilaahay subxaanahu wa ta'ala guriga ka qurux badan jannada ayna kaga dhiso jaziinana ka dhigo jannatul firdaws al-a'la ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka yeelo dhammaan dadka kale oo maartay ka faa'iideysanayana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku anfaco diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu maartay ku abaalmariyo khayr dhammaan khaasaan waxaan markaa leeyahay dadka waaweyn oo waxbarashada inay bartaan habeenkii waa firi waxa lacag ka qaadim hayo dadka waaweyn hadda badan waaweyn oo ka baxay baa jira oo dugsiga haddeertaan ka sii baxay sanadka dhow maartay qalinjabintoodii ay gali doona marka dadkaasna si gaar ah loo maamuuso insha Allah dadka waaweyn oo ka baxay dad waaweyn oo ka baxay waxa jira haddeertaan jaamacad yar dhigta macallimiinna ka laga yaabo dadka meesha jooga inay inta badan ka weyn yihiin oo sanad 60 ku sii dhow baa jira